Assalaamu calaykum. Waxaa la dhahaa qofka bini'aadamka ah inta uu eg waa 40 qof. Mana jiro qof ku nool dunida oo waxaa jiro qof u eg. Laakiin way adag tahay in la helo dadka isku eg. Oo dunidan waxaa ku nool in ka badan 7 bilyan oo qof. Laakiin way fududahay in la helo dadka u eg dadka caanka ah sida dadka ciyaara kubadda cagta. Oo sababtu waxay tahay ayagu waa dad caan oo waxa garanaya intaas oo malaayiin ah. Waxaan muuqaalkan idinkugu soo bandhigi doonaa 5 qof oo shabahda ama u eg 5 laacibiin oo caan ah. kuwaas oo in badan oo dadka ku gaado wadooyinka ayagoo dadku u kala hormarayaan sidii sawir ula gali lahaayeen ilaa wiilka u eg Maxamed Saalax iyo hooyada dhashay Maxamed Saalax umooda wiilkeedii balse intaana muuqaalka bilaabin like saar kuna soo biir kanaalka Xiskaale ee barta YouTube-ka oo subscribe samee si ay ku soo gaaraan muuqaalada soo gudbino. قالت لي مين؟ قلت لها افتحي يما انا محمد. فنزلت تفتح على اساس ان انا محمد. midka koobaad Shuhub Ahmed wuxuu u eg yahay laacibka Luis Suarez kaas oo u ciyaara Barcelona. waxaana haatan isweydiinaysaa kay ah Suarez ka dhabta ah waa sakee kan u eg laakiin midka hadda hortaada ka muuqda ma ahan Suarez ee waa Shuhub Ahmed oo ka soo jeeda dalka Ciraaq wuxuuna ka shaqeeyaa madrasa lagu barto Ingiriiska waxaana loogu magac daray Suarez-ka Ciraaq wuxuuna sida aadka ugu eg yahay laacibka Barcelona ee Suarez wuxuuna subax walba wadooyinka kula kulmaa dad fara badan kuwaas oo doonaya inay sawir la galaan. midka labaad Rida Bristesh wuxuu ka soo jeedaa wadanka Iran wuxuuna si dhameystiran ugu eg yahay laacibka Barcelona ee Lionel Messi wuxuu Rida soo baxaa asigoo xiran dharka Barcelona waxayna in badan oo dadka la galaan sawirro markii uu marayo wadooyinka wuxuuna booqdaa markasyada iyo madrasooyinka bilowga ah si uu u dhiirigeliyo carruurta wuxuuna la ciyaaraa kubadda cagta asigoona u qoro warqado sida Lionel Messi waxayna dadku aad ula yaabaan sida uu eg yahay Messi laakiin Rida oo kaliya ma ahan dadku eg Lionel Messi oo waxa kale oo jira wiil dhalinyaro ah oo asna lagu magacaabo Ardu kana soo jeeda dalka Lubnaan. midka saddexaad waxaa jira wiil dhalinyaro ah oo asna u eg laacibka Real Madrid ee Gareth Bale wiilkan ayaa sidoo kale ka soo muuqday baraha bulshada wuxuuna ka soo jeedaa wadamada Carabta gaar ahaan wadanka Ciraaq waxaana lagu magacaabaa Maxamed Iyad wuxuuna aad u soo caan baxay markii uu sameeyay ficiladii lagu yaqaanay Gareth Bale. midka afaraad Cristiano Ronaldo waxa uu eg wiil dhalinyaro ah oo ka soo jeeda Iran markii ugu horeysay wuxuu soo muuqday asigoo dadka waraaqo u qoraya sida Ronaldo uu sameeyo marka labaadna wuxuu ku soo caan baxay muuqaalkan uu sameeyo sida Ronaldo oo kale wuxuuna noqday mid ka mid ah dadka ugu caansan Iran markii uu ka soo baxay gurigiisa wuxuu la kulmay intaas oo kun oo doonaya inay sawir la galaan. midka shanaad Maxamed Saalax markii ugu horeysay oo sawirkan aragto waxaan leedahay waa Maxamed Saalax laakiin xaqiiqdu waxay tahay ma aha Maxamed Saalax laakiin wiilkan waxa lagu magacaabaa Ahmed Bahauddin wuxuuna ka soo jeedaa dalka Masar asigoona aad u eg Maxamed Saalax wuxuu Ahmed booqday guriga Maxamed Saalax waxayna labadoodu u kulmeen si toos ah iyadoona dadku markay wadada ku arkaan Ahmed u maleeyay Saalaxii dhabta ahay ilaa hooyada dhashay Saalax markii ay ilida ka furtay oo ay aragtay markii ugu horeysay Ahmed u maleysay Saalaxii ay dhashay laakiin waxay ogeed in wiilkeedu uu gudaha ku jiro isla waqtigaas. وكنت بنادي عليه في البيت فبقول له يا صلاح فوالدته بصت عليا بتقول لي مين؟ بقول لها افتح يما انا محمد. قالت لي طب انت ايه اللي نزلك؟ gabagabadii haddii aad kala garatay Saalax dhabta ah iyo mid ku eg ku soo qorbarta hoose ee commentiga adigoo kala saaraya labadooda. Wassalaamu calaykum.